jilba xanuunka wuxuu ka mid yahay xanuunada ku dhaco dhanka iyo lafaha kala baxyada. qofka wuxuu isku arkaa jilba xanuunka marka uu ku dhaco in jilbaha aad u xanuunaan, mararka qaarkood ay dikaamaan. qofka markuu istaagan uu isku arko in jilibka dhexdiisu ay ka yareyso shanqar aad u sareysa. waxyaabo kala duwan ayaa saameyn ku noqon kara in qofka uu jilbaha ka xanuunsado. ugu horeyntii haddaad igu cusub tahay saaxiib kanaal youtube-keyga inaad kusoo dhawaatid, marka labaad inaad like iyo subscribe-ka aadan naga hilmaamin. sidoo kale haddaad igala socotid dhanka iyo facebooka like iyo follow inaad nagu caawisid. maan asxaabta hore ila socotay iyo intii ugu cusub waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waxaan dul istaagaynaa jilba xanuunka, waxyaabaha sababa, qaababka uu imaado, qofka siduu u dareemo in jilbaha ay aada u xanuunayaan, calaamadaha uu isku arko. sidoo kale waxaa kaloo dul istaagaynaa sida ugu habboon aad ku daaweyni kartid markaad isku aragtid jilba xanuun. qofka marka uu jilibka xanuun badan uu ku keeno siyaabooyin kala duwan ayuu ku imaani karaa. dabcan waxaa ka mid ah in qaraankurta hore ay noqoto mid aada u jilicda ama softening ay noqoto, taasoo loo yaqaano patellar chondromalacia. haddii jeer arinkaas wuxuu ku imaadaa qofka marka uu culays badan uu qaado, ama qofka marka uu yahay athletic aada u isticmaala dhanka iyo jilibka, orod badan gala ama birar qaado, waxay noqonaysaa qaraankurta wareega inay noqoto mid aada u jilicda, shaqooyinkii loogu baahnana aysan qabanin, meeshana ay noqoto mid islista oo xoqonta, taasoo sababi karta inay dhammaato bateelada ama qaraankurta. sidoo kale waxyaabaha kale oo qofka ku sababi kara jilba xanuunka waxaa ka mid ah wareega hore ee jilibka, waxa loo yaqaana bursitis, in caabuq uu ku sameysmo, qofkuna uu isku arko dikaan iyo balbal badan inuu jiro iyo in meeshii ay xanuuneyso bararna uu jiro. waxyaabaha kale oo qofka uu jilba xanuunka ku keeni kara waxaa ka mid ah ligamentiska dhinacyada isku hayo ama xargaha dhaadheer ee labada lafood oo jilibka uu ku fadhiyo uu isku hayo, kuwaasoo noqon kara inay jeexmaan ama dhaawac uu soo gaaro, ay ku dhacaan wax loo yaqaano ligament rupture. haddii xargahaas ama seedahaas ay jeexmaan, qofku wuxuu dareemaa balansigii inuu dhumo, uusan socon karin, xanuun badanna uu ku hayo jilibkii. waxyaabaha kale oo jilba xanuunka keeni kara waxaa ka mid ah in kala baxda jilibka ay ku dhalato ama ay ku badato uric acid ama crystals. taas waxaa loo yaqaanaa cudurka goydka ee ku dhaco jilbaha ama kala baxyada. meeshaas kala baxdaas waxaa ku buuxsamaya jilibka dhexdiisa quruuruxyo badan oo ka imaada dhanka iyo habwareega dhiiga ku bate, taasoo ay suurtagal tahay in meeshaas ay ku keedsamaan, qofkana uu dareemo xanuun, balbal iyo in meesha ay soo barato. sidoo kale jilba xanuunka waxyaabaha kale ama qofka ku keeni kara waxaa ka mid ah rheumatic arthritis, inuu ku dhaco laf xanuun gaar ahaan dhanka iyo kala baxyada, cudurka loo yaqaano rheumatismka. waxyaabaha kale ee keeni kara jilba xanuunka waxaa ka mid ah in qofka cartilageka uu aada ugu yaraada ama carjowdii labada lafood isku haysay inay dhammaato, taasoo lafta ay ku keeni karto ama ay isku imaani karto inay isxoqaan ama islisaan. arinkaas hadduu dhaco wuxuu dareemaa qofka had iyo jeer jilba xanuun, in meesha ay xanuunto qofkuna uusan socon karin. sidoo kale dadka khataraha badan ugu jiro inuu jilba xanuun ku dhaco waxaa ka mid ah qofka da-da ah. marka uu qofka uu da- noqdo, had iyo jeer waxaa lagu arkaa in jilba xanuunkiisa uu aada usoo saayiday. taasina waxay keenaysaa in murqihii ay dibceen, murqihii howl badan aysan qaban karin, adkeysi badan aysan lahayn, awood badan ay kusoo jiidaan carjowda ama ligamentiska seedaha ma lahan, taasoo qofka uu ka dareemaya xanuun badan. sidoo kale dadka da-da waxaa yara ka dhammaato cartilageka ama carjowda ku dhex jirta labada lafood dhexdooda, iyadoo ay noqonayso meeshaas in erosion uu dhaco ama inay isxoqday. calaamadaha guud ahaan jilba xanuunka lagu dareemo waxaa ka mid ah marka ugu horeyso meesha ay dikaamayso mar walbo barar badanna uu jiro, inay soo guduudan tahay, taasoo ay macquul tahay in meeshii ay dhex fadhiisteen fuluud ama dhacaan. sidoo kale dadka khataraha ugu jiro ama dadka unugul leh inuu ku dhaco jilba xanuun waxaa ka mid ah in qofka mar walba haddii uu da-diisa aada u dhaafto 40 ama 50 waxa ka weyn, haddii jeer uu isku arko jilba xanuun, in jilibkii uu dikaamayo, balbal badan uu jiro. sidoo kale inuusan socod badan uusan geli karin, taasoo ay jilibka uu dikaamaya ama uusan kala bixin karin, oo lafta ay noqonaysa mid qac yeersiisa ama shanqar ka yarta.
sidoo kale dadka aadka u isticmaala dhanka iyo jimka ama sportiska ah ayagana waxaa jira in balansiga uu dhumo, miisaankiina uu aada hoos ugu soo dego dhanka iyo jilibka, laftaasoo cadaadis badan dareenta, cartilagekana meesha uu ku yaraado ama u dhamaado erosion uu noqdo ama uu ku xoqmo. sidoo kale dadka u nugul leh in jilba xanuun uu ku dhaco waxaa kamid ah dadka aadka u cayilan, taasoo miisaankooda uusa suurtagal ahayn in jilbaha ama lugaha hoose ay xamilaan, balansina uu dhumaayo ama isku dheelitirnaantii dhanka iyo miisaanka. haddaad isku aragtid calaamadaha jilba xanuunka waxaa muhiim inaad la tashitid dhanka iyo dhakhtarkaaga ama goobta caafimaad ee kugu dhow. marka ay noqoto inaad isku aragtid calaamadaha jilba xanuunka, marka ugu horeysa haddaad tahay qof sportsman ama balooniga cayaara ama biraha qaado, waxaa lagaa rabaa inaad sameysid inaad nasatid, jilibkaaga culays badan aadan saarin, bareshar badan aadan saarin. sidoo kale inaad isticmaashid biyo qabow ama baraf inaad mar walba jilibka korkiisa saartid. sidoo kale habeenkii markaad seexanaysa inaad u dhigtid barkin si aysan jilbahaagu u dareemin bareshar badan, taasoo ay suurtagal ah in cadaadiska uu kaa yaraado. waa inaad isticmaashaa inaad bandage aad ku duubtid. dhanka iyo daawooyinka markaa u imaano waxaad isticmaali kartaa daawooyinka painkillerska, gaar ahaan non steroidal anti-inflammatory drugs, daawooyinka ay kamid yihiin naproxen, diclofenac, indomethacin. in yaroo kugu filan haddaa qaadatay oo isbedel uu imaani waaye. talooyinka aan kuusoo sheegana aada isticmaashay gaar ahaan inaad nasato, waqti badanna aad balooni galin, cunooyinka u fiican dhanka iyo jilbahana aada isticmaashid, kuna dadaashid inaad mar walba biyo qabow korkiisa saartid ama baraf. intaas haddii xal u imaan waayo waxaa muhiima dhakhtar inaad u tagtid, taasoo loo baahay in lagu saaro CT scan ama MRI si loo ogaado haddii ay jiraan in seed uu go-an yahay, in barar ama dhacaan uu gudaha uu ka buuxsame, ama in cartilagekaaga uu dhamaado carjawdi. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, dhammaan waxaa idin leeyahay aada iyo aada u mahadsantihiin dhageysiga ila socodka video clipska aan soo geliyo. halkan ayaan ku joojinaynaa.